daawade waxay u badan tahay inaad u soo taagnayd qof dhintay oo meydkiisa la aasayo. Hubaashiina waxaad og tahay in gaal iyo muslimba marka qofku dhinto meydkiisa la aaso. Laakiinse waxaa suuragal ah in aanad waxba kala socon laxashyada lagu helay meydka dadka ee ka lusha fikta sare ee buuraha Shir ee dhaca gobollada Sichuan iyo Yunnan ee dalka China. waa laxashyo ay buurahan ka soo luleen qoomiyad lagu magacaabi jiray Bow oo gobolladan degi jirtay kumanaan sano ka hor, kuwaasi oo gebi ahaanba la xasuuqay oo dunida laga tirtiray xilligii ay talinaysay boqortooyadii awoodda badnayd ee lagu magacaabi jiray The Ming Dynasty ama The Great Ming ee dalka China ka talin jirtay intii u dhaxaysay 1368 ilaa 1644. Qowmiyadan ayaa dhaqan ahaan u lahayd in qofku marka uu dhinto intay meydka ku ridaan laxash loox laga qoray kadibna saari jiray fikta sare ee buuraha deegaankooda oo aad u dhaadheeraa. khubrada cilmiga archaeology-ga ayaa ilaa maanta la daalaadhacaya inay fantaan buurahan oo ay si dhaba u darsaan hadhaaga dadka Bow ee ku jira laxashyadan dhererka buuraha awgeed. lama yaqaano sida ay dadka ugu suura gashay inay gaadhaan baarka sare ee buurahan ilaa maanta loo taag waayay in cag la saaro iyadoo horumar iyo tiknoolajiyad la isbidayo. laxashyadan ayaa midkiiba culayskiisu dhan yahay ilaa 500 oo pound, waxayna dhulka u jiraan fogaan dhan 300 oo feet. waxaa la sheegaa in qoomiyadda Bowgu ay aaminsanaayeen in marka uu qofku dhinto uu markiiba nolol cusub ka bilaabayo caalam kale oo xagga samada ah. sidaa darteedna laxashyada meydka ayay saari jireen buurahan aadka u dhaadheer si ay qofka ugu galbiyaan noloshiisa dambe ee samada. Professor Lin Xian oo muddo 30 sannadood ah darsayay qaab nololeedka dadka Bowga ayaa yidhi awoowayaasheen waxay aaminsanaayeen in qofka dhintay uu weli nool yahay oo caalam kale uu u guuray halkaasi oo uu nolol cusub markiiba ka bilaabayo. mid ka mid ah mahmaahyada laga guntay qowmiyadan ayaa tiraahda meydka ula dhaqan sidii oo uu nool yahay. dadka Bowga ayaa lagu naanaysi jiray Dautian oo macnaheedu yahay dadkii dagaalka kula jiray samada. waxay ahaayeen dad ku caan baxay dhaqamo lala amakaago, waxaana tusaale kugu filan inay xilliga qabobaha xidhan jireen dhar aad u khafiifa iyagoo xilliga kulaylahana taa cagsigeeda xidhanaya dharka dhaxanta loogu talagalay ee culculus.